Ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kuugu horeysay, subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa diyaarinaysa banaanbax xooggan oo ka dhan ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed sida ay ogaatay shabakada Sirta Media. Banaanbaxa la filayo inuu ka dhaco Muqdisho ayaa waxaa amray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay ilwareedyo ku sugan villa Soomaaliya u sheegeen shabakada Sirta Media. Dowladda ayaa aad u dhibsatay kulamada ay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ka wadaan Muqdisho ee looga soo horjeedo xadgudubka ay dowladda ku samaysay xuquuqda isu socodka muwaadinka, caburinta siyaasiyiinta iyo jidadka xiran ee Muqdisho. Waxaa sidoo kale banaanbaxa la qorsheynayo uu yahay mid jawaab u ah ama loogu hordhacayo dibadbax kale oo madaxdii hore ay abaabulayaan si ay u muujiyaan inaysan la dhaxsanayn siyaasadda dowladda. Abaabulka banaanbaxa uu Farmaajo amray ayaa waxaa loo xilsaaray garabka loo yaqaano xoogagga wadaniyiinta Farmaajo ee ku xiran madaxtooyada villa Soomaaliya si aad ahna daacad uga ah madaxweynaha oo bil walba ka qaata mushaar. Xoogagga wadaniyiinta Farmaajo ayaa ah koox u carbisan abaabulka iyo guulwadeynta madaxweynaha, kuwaasoo xubno firfircoon ku leh degmooyinka gobolka Banaadir. Dibadbaxa ay diyaarinayaan xoogagga wadaniyiinta Farmaajo ayaa waxaa ka qayb galaya hooyooyinka ku xiran iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo dad laga soo wadayo qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha Muqdisho. Qorshaha banaanbaxa xoogagga wadaniyiinta Farmaajo ayaa waxaa qayb ka ah in Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif lagu calaamadeeyo qabyaalad, loona muujiyey inay madaxweynaha ku mucaaradayaan qabiil ayaga oo adeegsanaya dadkooda oo ah qabiilka uga awoodda weyn magaalada Muqdisho. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa in uu qaado tallaabooyin ballaaran oo isbeddel maamul ah. Warar ay heshay shabakada Sirta Media ayaa xaqiijinaya in gudoomiye Cumar Filish uu xilalka ka qaadi doono gudoomiyaasha degmooyinka, ku-xigeenada iyo agaasimayaasha gobolka Banaadir. Xilka qaadista ayaa laga yaabaa in aysan saameynin dhammaan mas'uuliyiinta boosaska aan soo xusnay, balse waxaa la sheegay in dhawaan ay dhici doonto xilka qaadis iyo magacaabis. Ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa shabakada Sirta Media u xaqiijiyey in arrintan ay tahay mid ay isla qaateen madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana laga bilaabi doonaa gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir. Arrimahan ayaa lagu micneeyey in shaqada gobolka ay u baahan tahay in lagu sameeyo isbeddel ballaaran oo dhan walba ah. Sidoo kale, xogta aan helnay ayaa sheegaysa in xilka qaadista, magacaabista intuba aysan dhici doonin isku waqti, balse ay socon doonto ilaa toddobaadyo, waxaana laga yaabaa in ay saameyn ballaaran ku yeelato mas'uuliyiin culus oo ku dhow madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Dhanka kale, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka digay khatar uu sheegay in Soomaaliya ay uga soo wajahan tahay dowladda Qatar. Dowladda Carbeed ee Qatar oo galaangal siyaasadeed oo aad u xooggan ku leh siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan madaxda hadda talada haysa, ayuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in ay beddesho qorshaheedii hore, isla markaana ay 2020 doorashooyinka lagu wada in ay dalka ka dhacaan ay muruq iyo maalba ku soo saari doonto xubno gaar ah. Qatar waxay beddesho qorshihii hore ee ay maalmaha ugu dambeeyay doorashooyinka dalkeena ka dhaca boorso lacag ku keeni jirtay. Waxay haatan wadaa qorshe cusub, isla markaana duug ah, oo ay ku doonaysa in ay doorashooyinka 2020 ku taageerto mid ka mid ah madaxda villa Soomaaliya. Dowlad goboleedkii taageera qorshahaas waxay u fidinaysaa taageero dhaqaale oo toos ah, halka tii ka hor timaadana ay dagaal toos ah la galayso, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Qoraalkiisa oo intaasi ka dheeraa ayuu siyaasigaasi shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee wanaagga ka raba dalkan waxa uu ugu baaqay in ay meel uga soo wada jeestaan damaca dowladda Qatar. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan siyaasiyiinta damaca kale loolanka doorashada 2020, in meel looga soo wada jeesta qaska iyo faragelinta ay dowladda Qatar ka wada dalkeena, ayuu ku soo gabagabeeyey qoraalkiisa hogaamiyaha xisbiga Wadajir. Dhanka kale, weli waxaa magaalada Muqdisho ku xayiran mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwaasi oo dana kala duwan u yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, halka qaarkoodna ay transit ku ahaayeen garoonka Aadan Cadde. Shabakada Sirta Media ayaa baaritaan ay samaysay waxay ku ogaatay in dowladda Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ku hayso mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwaasi oo doonaya inay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo. Dadka Muqdisho ku xayiran waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha maamulka Jubbaland Axmed Sheekh Cismaan Saciid oo dhawaan shir uga qayb galay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Shirkaas ayaa ahaa mid ka dhexeeya xeer ilaaliyaasha qaranka ee heer dowlad federaal iyo dowladda dhexe, waxaana shir gudoomiyey xeer ilaaliyaha qaranka. Waxaa sidoo kale Muqdisho ku xayiran gudoomiyaha degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe. Shakhsiyaadka kale ee ku xayiran Muqdisho ayaa waxay isugu jiraan agaasimayaal wasaaradeed, agaasimayaal waaxidyo, gudoomiyaal degmo, shaqaale ka tirsan wasaaradaha Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale.
dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ishortaagtay bixitaanka dadkan waxaana qaarkood loogu hanjabay in la xiri doono haddii ay warbaahinta waraysi siiyaan sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dadka ku xayran magaalada Muqdisho. Dhanka kale, maxkamadda ICJ oo u yeertay Soomaaliya iyo Kenya u yeeritaanka labada dhinac ayaa ka dambeysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ahaa in dib loo dhigo dhageysiga ilaa bishii Sebtembar ee sanadda 2020. Soomaaliya ayaa la sheegay in codsigaasi cusub ee ka yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay ayna ku adkaysatay in dhageysigu uu bilowdo bishii November ee soo socota afarteeda sidii hore ee maxkamaddu u mudaysay. Waa markii labaad ee Kenya codsatay in dib loo dhigo dhageysiga. Labada dowladood ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhageysiga dacwadda, taasi oo keentay inay maxkamaddu u sheegtay labada dowladood inay iyada gaari doonto go'aan ayna ka doonaysay labada dowladood inay aqbalaan. Sida ay noo sheegeen ilo diblomaasiyadeed, waxaa magaalada The Hague ee xarunta maxkamadda ICJ gaaray wafuud ka kala socotay labada waddan oo ay kala hogaaminayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo sharciyaqaanka guud ee Kenya Kennedy Ogeto. Wafuudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaaray The Hague kadib markii ay maxkamaddu u yeertay, waxaana wakiilada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen magaalada Muqdisho iyo dalka Mareykanka. Madaxweynayaasha labada waddan ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intii uu socday kulankii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, iyadoo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku baaqay inay labada dowladood wada hadlaan, halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in loo baahan yahay in maxkamadda ICJ ay go'aan garsoor ka gaarto muranka badda. Dhageysiga dacwaddan ayay ahayd inuu dhaco 9 ilaa 13 bishii hore ee Sebtembar, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid dhinaca Kenya oo ku dooday inay qabsanayso qareenno cusub. Dhanka kale, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa tilmaamay dhibaatada haysata shacabka magaalada Muqdisho ee amniga iyo siyaasadda isugu jirta, isagoo ka deeriyay in xal loo helo. Shacabka xamar waxay u dhaxeeyaan federaal canshuur ka qaada, wadooyinkana ka xira, iyo qarax aan joogsi aqoon dibna aan la isku weydiin, iyo siyaasiyiintii dejin lahayd oo iyaga isku kacsan. Sidaas ayuu yiri Yuusuf Garaad oo baraha bulshada dadku kula wadaaga fikradihiisa. Isagoo sii hadlay ayuu sheegay inaan la ogeyn sida ay intaasi isula falgali doonaan, wuxuuna yiri waa tijaabo aan la aqoon waxa ka soo bixi doona. Fariinta Yuusuf Garaad ayaa ku soo beegantay iyadoo xaalad siyaasadeed oo kacsan ka taagan tahay magaalada Muqdisho kadib markii labadii madaxweyne ee ugu dambeysay dalka ay si furan joogto uga cambaareeyaan siyaasadda madaxda dowladda federaalka ee hadda xilka haysa. Dhanka kale, Xasan Cabdulqaadir Muudey oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabelle ahna la taliyaha dhanka warbaahinta ee madaxweynaha Hirshabelle ayaa isagoo aragtidiisa ku cabiraya sida ay hal saf ugu soo wada jeesteen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaanay la dhayalsan karin isla joogooda. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, iyo Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii xilka ku wareejiyay Xasan Sheekh, ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya. Tani waxay ka dambeysay markii dowladda ay xanibtay diyaaradii ula socday Shariifka oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo. Xasan Cabdulqaadir Muudey ayaa sheegay inaanan la yareysan karin isla joogooda madaxdaasi iyadoo aanan loo gafayn aragtidooda ku aadan marxaladda uu dalka marayo. Wixii ilmo Sheekh kulmiyey inay isla joogsadaanna kalifay waa arrin u baahan inaan la yareysan loona gafin aragtidooda ay maalmaha inala wadaagayeen, ayuu yiri Xasan Cabdulqaadir Muudey. Waa laba madaxweyne oo si dimuqraadiyadeed xilalka u kala wareejiyay, waxayna ku soo shaqeeyeen marxalado aad iyo aad u adag. Labaduba waa ehel ka soo wada jeeda caasimadda Muqdisho, waxayna wada yihiin curadka iyo yaraanka bahda ay ka dhasheen, ayuu sii raaciyay. Wuxuu iftiimiyey in labada madaxweyne oo siyaasadda ku kala aragti duwanaa inay markaan isku aragti ka noqdaan ay tahay mid u baahan inaan la dhayalsan oo dowladda dhexe ka gaabin saameynta ay yeelan karaan. Waa laba madaxweyne oo aad u kala aragti duwanaa, waxa ay isaga aragti noqdeen waa wax u baahan in dowladda dhexe aysan ka gaabin oo nuglaashaha khibradooda iyo saameynta ay leeyihiin ama yeelan karaan, ayuu sii raaciyay Xasan Cabdulqaadir. Xasan Cabdulqaadir oo la soo shaqeeyay dowladihii ay labadaas hogaamiye maamulayeen ayaa waxa uu yiri aniga aragti ahaan inta ay dalka soo xukumayeen haddii ay qaladaad jiraan kama aamusi jirin, marna kama gaabin aragtidii aan ka qabay inta ay dalka soo hogaaminayeen. Muudey oo ilmo Sheekh la hadlaya ayaa yiri waxaan leeyahay madaxweyneyaal, waxaad qiimaysaan xaaladda cakiran ee uu dalka marayo, gaar ahaan Muqdishada aad ka soo jeedaan. Muudey oo dhanka dowladda baaq u jeedinaya ayaa yiri madaxda dowladda iyagana waxaan leeyahay waa muhiim in aad u dhiga nuglaataan mas'uuliyiintii dalka dowladnimadiisa si dimuqraadiyad leh oo aan buuq lahayn idinkugu wareejiyay, waana lagama maarmaan in aad la fariisataan kuna qanacdaan wax kasta oo qaanuuni ah ay idin soo jeediyaan. Muudey ayaa warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay shabakadda bulshada xiriirisa ee Facebook. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad ka heli kartaa Sirta Media.